السلام عليكم حتى لما انتم وصلنا كزول channel كان في المركز هذا channel سبسكرايب كرين هيلو بنا channel سبسكرايب كرين سو ما انت فيديو هنا وحنا نقول ان شاء الله اوكي صد كاركتر حوانك لعقتي من لوسكري معناها هو معي like really in a لوسكري هي feeling نوعيه ay leedahay maxaad dareemaysaa marka looskariso maxaad qorshaha muxuu noqonayaa marka aad saa wax u looskariso waxa koowaad qalbiga ku soo dhacay muxuu noqonayaa yani markaas oo kale waxa ciyaarta waxa soo galaysa iimaankaaga soo galaya sidoo kale waxa soo galaya nafsadaada quwadaada meesha ay taagantahay soo galaysa waxa soo galaya inta in like bata qof struggle diyaar ah waxaas dhamma meesha soo galaya so let me tell you one very easy thing and important also markii aad rabto inaad wax looskariso waxa koowaad qalbiga ku soo dhacay isma noqonin wax ku harti karinay believe me haska noqdo wax normal ah ugu yaraan dooni important ma aha dooni iska dhaqaaqa dooni ha ka fikirin laakiin wax baan ku sheegay doona ha ka fikirin haddaad ka fikirto taas impact weyn bay kugu sameeyaan so let's see what step kan aan qaadnay dadka bar waxa laga yaabaa inay dhahaan waa doqonnimo because inaad wax proof karayso uma baahna sometimes inaad shayga yani samayso si aad u proof karayso waxa laga yaabaa inay logic isticmaalaan dadka barkood ay dhahaan okay haddaad focus ka soo tuurto oo rabto inaad tijaabiso haddii qofku focus ka soo tuuro inuu dhimanayo ma aha intaad focus ka soo tuurto inaad eegto inaad dhimanayso in kale because you know waa dhimani marka proof ma baahna maxaad u samaysaa sidan laakiin mid kale ayaa jirta طبعا تاسو كله بروف ما بعد لكن sometimes شيء هدية واحد second chance هلي كرتو إنه يهاي ويعني واحد second chance سمعني كرتو إن أردت نروش هيك كتير أنت sometimes وين risk قالته وين واحد سكوت طيبة because طلع أكثر بدل معها واحد نشكريه أكثر بدل معها only $1,000 around بين خمسة تضرب خليه $something لكن تضرب خليه $something قف في النشكريه مركا أيضا العقد السجن أنت سأي واحد وحلفين إنه هنا قفك أسجن مركا كنتم كنا $1 أي واحد العقد لكن كنا $1 مو خسارة وحن فيسبوك وأركي على إنه ماشي exactly but صبرتك سومالي أي واحد أنت FX experiments وحن كولا forex trade greenي then نشكري العقد هذي لما مركا probably إلى كنت بيكون $1 حتى حاولي أنزل بفيديو كسمي أوكي هذا أنت yes قفك أسمع هذا يعني so هذا الشيء اللي يعني أنت تصالحان فوق أين تكسر تورتو أو تكسر على الأولى وحويان وح معها محل هاي النروش أتسكالكوا بكرت معها يعني شانسي النروش لكون بكرت معها لكن إن الشيء خسارته إن تقوليست وشانسي النروش عندكم بكرت مرك حدي على أركت تقوليست يا مرك أتقوليست واحد أدريميسو سيد أكل وين أركي كرت واحد خسرت واحد أدريميسو بيكوس خسارة موجودة النروش مرة خسارته ومرة الله كل بكرت so right now وحنا إيران قاعد نصدق بل إنها فيريو حقيقة هدي أذن استراتيجي analyzing إيو أذن استعمالين واحد كتير كرينا يسوع أو deeply أذن أكتحيس ولي بدنا stop loss كذي واحد أردنا له هدي أذن استعمالين خسارة نوعية على كل بكرة هدي أذ خسارة impact تلاقي بقول سمعينك حقوق سمعينك okay that was the important point point كده سأيه so okay لما say you feeling here I'm feeling great وإني شيء توني لكن نورت أنت الخسارة كنت يعني إني شكل سود كل عاي واحد وين الفيديو دي هراء إن تصير فيديو دي هراء وبلا وبارك تند channel فيها إن أركضون ده ما نتي جوريس إنترنت بلان اللي حتى أكلني هالكل إيسي أنا أكونت أركسو حيد variable account $1 أي كوشرتي $1 أي كوشرتي لعكتي خسارة أيو قاري $40 لكن $40 أي نقص بلاني كور أي نقول دخلني challenge أصلا حنتون أو نور كلي لا أنك قارنه still $100 okay still $100 لما يسوي سعر $100 so سعرك $100 اللي قاري إن الخسارة محاكيني سأل الله شيء مركي واحد حوالي نسوي experiment إن تجابي واحد يوصل كرت impactين يوصل okay so halkan waxaad arkaysaa in lacagta ugu yariis inka ay tahay $500 so hadda waxaad garanaysaa in lacagta halkan ugu yar ku jirtay $500 akoonkeena markuu grow taas proof wahed sidoo kale waxaan tustoonaa insha Allah MT4K history dhammaan wixii soo ayaan ku tustoonaa insha Allah okay so right now waxaad fiirin doontaa insha Allah waxaan shaashada soo dhigi doonaa telefoonkeyga all right 1 minute waxaan tusi doonaa ECN account-keyga all right so here was history وهكذا هالكيسيد لعقت كورت $3 لعقت كوجت وحيد $700 iyo something بهاد هذا كنت التاريخ المركع عن كتوسو لعقت مسيد وسو جرو جرينيسي أي وسو سعتي you know واحد أركز على حاجة تصالح عن حل دي on سميني
wax gaaraya $150. It was really very happy day. Hadda tusaalahaan oo kale lacagtan anyway lacagtan khasaarnay waatan waxaad arkaysaa $508 inaan hal mar khasaarnay and then inaan dana $272 aan khasaarnay marka labada trade in iska ka khaldamin waxa u dhaxeeya dhowr trade dad moodaysa laakiin ma ahan taariikhda dad eegto waa isku hal trade oo isku hal maalin furay right so a trade isku hal maalin socday and yeah khasaare ay ku dhamaatay so maxaa dareemi lahayd haddii lacagta ay dhanay aan khasaarto trade-ka lacagta halka ku jirtay waxay dhaneed suuqii $271 lacagta ay tahay waad garan kartaa inta isku geyso so hadda waxaad arkaysaa withdrawal-ka inta aan kala baxay waxay ahayd $100 sababta aan uga baxay waxa weeyaan $100 waa $100 ee ku bilaabay lacagta ka soo hartay waxaas dhan waxay ahayd lacagta meesha ku sii jirta ma fahantay so as you can see lacagta $100 aan kala baxay inta kale waa lacagta meesha ku jirtay so waxaan khasaaray lacagta aan meesha ka sameeyay so haddaba su'aasha aad isweydiinayso xitaa hadda lacagtii baad khasaartay wax weeyaan maxaad hadda sheegaysaa maxaad yani qorshahaagu muxuu yahay okay let me tell you haddii aad wada marto adiga oo raadinayo guri haddii aad wada marto oo wadadaas meel khalad kugu soo tuurto wadadii haddii aad damacdo inaad gurigii mar labaad aado wadadii ku khaladay waad garanaysaa qaabka u egtaan number 1 number 2 wadadii aad u martay guriga aaday sidoo doonaha kugu adkaato markii hore waxa weeyaan marka dambe aad damcaysa inaad guriga aado wadadii aad martay waad garanaysaa si dhib yar wadadiina guriga toos baad aadaysaa si markii hore ka dhib yar number 2 taas waxa proof kuga markuu Ilaahay la hadlay gaalada oo uu sheegay gaalada leeyihiin sidoo Ilaahay u soo noqdayn kara jid carab noqday oo lafan noqday muxuu Ilaahay leeyahay shayga markii hore la sameeyay markii hore Ilaahay sameeyay waa adkaanaysaa inuu sameeyo mar labaad because markii koowaad baa lagu sameeyay oo laga sameeyay carro oo lagu sameeyay siday uu adkaanaysaa Ilaahay markii hore ku sameeyay carrada ka sameeyay inuu mar labaad ku sameeyo because shayga taas waxa natural adduunka dunida aad joogto shayga mar aad sameeyay marka labaad uu ka dhig yahay marka mid aan damacsanahay inaad ila sheekay intaan ka bixin xubiyaan qaabka inuu khasaarnay iyo trade soo khasaaray so trade halkan ay maray gambling markaan sameeyay waxay ahayd there halkaas ay ahayd and then waxaan sameeynay inaan iska gamble karayno bartaas advice ka dhahno inagoo ka fikirin inuu barta u taagan yahay haddii aad fiiriso day markay ahayd inay tahay meel uu mar hore xoog uga soo laabtay as you can see meesha uu taagan yahay there marka halka ay ahayd waxaan ka wadaa inay meel bahalkii tahay and yes yani inay tahay bahalkii support waxaan ka wadaa resistance aad u adag markii soo agna ka soo laabtay si xoog leh so yes inay maxayd in khasaare kala kulmi karno laakiin waxweeyaan inaadan alnaas kareenin wax wadan tijaabinin wax iska fiirinin sometimes khasaaraan ay ku keenin kartaa okay anyway insha Allah waxaan hadda isku dayi doonaa inaan video halkan ku dhameeyo asxaabta trade kareen waxaan leeyahay fadlan haddii aad rabin inaad khasaarto ugu yaraan dadka khasaaray dhageysta videogooda oo daawada waxay ii sheegaan dhageysta because in lagu sheego mar walba khasaari haddii aad waxa sameyn weydo waad faa'iido guuleysan hadda waxa sameyn weydo waxna badan ma sameynayso hadaan ku dhaqmaynin haddii khasaaraha qofka khasaaraha la kulma iyo qof khasaaraha looga sheekeeyo kee inta badan iska ilaalin og mar walba qof khasaaraha iska la kulma ayaa iska ilaalin og because kan wali ma ba arag bada khasaaro wuxuu yahay faa'iidada la kulmay iyo kan faa'iidada aan isaguna maxaan dhahay sidoo kale aan garanaynin wax shaygan oo haysta faa'iidada qiimaha leeyahayna markaas ayada iyagana labadana isku maaha marka insha Allah video maraba inaan leeyahay asxaabta dhamaantii waa wada salaamayaan marka insha Allah channelkeena iloobi ma subscribe karaysin wixii hadda halkan ka dambeeya insha Allah haweenana lacagteen ako mar labaad garow karayna si fiican ayaan u dhaqaaqo doonta insha Allah iloobi channelkeena subscribe waa cusub labaad intaan markaas sarkeen dhamaantii waa salaamayaan